الرحيم داود الكسر لواذا برامج كرراع وحلدان وكلاعات كداوتان تلفزيون كقرن كحرونتي سلح مقالة مقدشو قضبضة دعوة كداو دونتان وحاقوا وين رئيس وزراء حكومة فدرالك عاي الصوماليا أي واحد وكل واقع إن لكردين يوم ميزانية هيئة النافذة قرن كصوماليات iyadoo maanta markaas ay ku beegneed maalinta naafada caalamka sidoo kale waxaad kala daawan doontaan hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in markaas duruufo kala duwan ama xaalado kala duwan ay ku sugan yihiin naafada Soomaaliyeed waxaad sidoo kale daawan doontaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa qawaariidta al-shabaab waxa ay markaasi ay kala wareegeen deegaano kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qurbo joogta Soomaaliyeed sidee uga qayb qaadan karaan horumarka dalka iyo amniga iyo ganacsiga iyo kacdoonka shacabka ee markaas dalka looga saaray guud ahaan kooxda qawaariidta ee al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka Radraac marka la ku soo dhawaada waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa ee barnaamijkeena Radraac ee telefishinka qaranka aan ku bilaabay way wali waxaad la socotaan barnaamijka Radraac oo idinkaga imaanaya telefishinka qaranka xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho qodobo dhowr ah ayaa inoo soo socda oo markaasi haddii aanu eegno qurbo joogta Soomaaliyeed sidee ugu qayb qaadan karaan horumarka dalka iyo amniga waxaana iyo ganacsiga iyo waliba kacdoonka shacabka ee dalka looga saaray argagixisada shabaab ugaas maxamed ayaa qadka Skype-ka markaasi Mareykanka kaga sugan oo ku jira ugaas soo dhow qaranka waliba khaasatan barnaamijka Radraac waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waa kaaga mahadcelinayaa aniga gaar ahaan oo Axmed Umar wadhow bal soo dhawow marka xigta bal sidee qurbo joogta Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karaan howlgallada ka socda dalka iyo kaalintooda ku aadan sidii markaasi kor loo qaadi lahaa dhankii dhaqaalaha ee dalka kaalin ceenkee ay qurbo joogta kaga qayb qaadan kartaa xaqiiqatan waxay kaga qayb qaadan kartaa kaalin ururdhexaad ah sida 30 sano iyo 40 sano ee hadda ee waddanku burbursanaa ayaga baag up ay u ahaayeen nolosha weliba khaasatan nolosha qoyska ee biilka hoose ee haddana uga qayb qaadan karaan inay mashaariic waaweyn abuuraan isla markaasna ay ka qayb qaataan horumarka waddanku uu sameynayo weliba khaasatan dowladdan hadda runtii aan soo koobi karin intii muddada yar ay jirto waxa ay qabatay marka laba qaab waa u furan tahay iyagoo si oo organize ah oo organize oo gurubyo ah ama gurubyada ganacsi ah ama in ay si toosa shirkadaha jira ee wax ugu darsadaan in ay laftooda shirkado hore abuuraan intaba waa uga qayb qaadan karaan fursadna waa haystaan awoodna waa u leeyihiin inay taas sameeyaan maadaama aqoon-yahanada Soomaaliyeed aad ka mid tahay oo cariga dalka Mareykankana aad ku sugan tahay door ku aadan inaad kulamo aad qabataan oo kaalin weyn aad uga qayb qaadan kartaan sidii maadaama kacdoonka shacabka ee guud ahaan qawaariidta dalka looga saaray uu socdo doorkiina qurbo joogta Soomaaliya inaad ka qayb qaadataan oo kulamo iskugu imaataan oo aad ma sameyseen dabcan taas hadda waxa la isweydiinaya waa runtii waa u soo socday hadda waxaa jirtay muddo hadda laga joogo 3 asbuuc in oo meeshaan hadda jooga Minneapolis lagu qabtay kulan duca isugu jira iyo in waa loo aruuriyo aqoonta iyo dhaawaca nimanka anigu khawaarij ma arkay maalidiinta iyo mustashriqiinta iswan ah nimanka khawaarij xataa lama oran karo marka run aan ilaahay soo hadalno laakiin maadaama aan khawaarij adigu waa maalidiin iyo mustashriqiin marka kulan horena waa jira kulanka hadda loo balsiyana waa jira oo weliba xataa waxaan goobjoog u ahaa iyadoo
dhaqdhaqaaqa hiiraan ka socda loo arooriyey lacag kor ku dhaafaysa 150,000 iyo wax ka badan ilaa haddana waa socotaa waxaana jaaladaha dhan aan ka codsan lahaa sida ay hadda runtii reer yaab isku agaasimeen iyo si ka fiican isku agaasimaa kaalin nugu lahaana nooga furan inaan ka qayb qaadanana ay tahay insha allah waa taas waa naga diyaar markii aad fiiriso markaan ka soo baxno xagga iyo diblomaasiyadda aan aadno dawladda Soomaaliya sida aan xasuusano waxa ay door weyn ay gelisay sidii markaasi loo xoojin lahaa xiriirka caalamka ay la leedahay maadaama ka aqoon-yahan ahaan doorkaas ku aadan dawladda in ay dib u soo celiso xiriirka diblomaasiyadda ay la leedahay dunida inteeda kale kaalintaas maadaama dawladda ay qaadatay ka jaaliyad Soomaali ahaan maadaama hadda horumar kala duwan oo xagga markii la yiraahdo diblomaasiyadda uu aad u sareeyo sida idin muuqataa oo ka maadaama qurbo joog ahaan oo aad wadamada adduunka aad ku sugantay sidoo u aragtaa طبعا وسكور ان عادي اهين يدور حد تكتي ولبا خاصه مدحونا حسن الشيخ محمود بذلك سفرها بدل وظن موجين مدالة يعني وما دعين مدحونا أسير كفري ما دعي دون مدحونا كتب بيا ووث الدبلوماسية كتب دور وصوت أن مدكوا من جهود يا وحنا كسر الشيء شرطي يا كرامة كتب شرطي سنة إلى صور عف أو ما تي سومالي شرعي بمركو أسير مناش ما عفير ما سومالي وحي تاني ماشي وحنا أو أدون كلنا حين وحي كلها وحي 2010 markii al-shabaab hadii ku maxaakiimta Itoobiyaanka ay dagaalanayeen oo ordagan xilligu iimaanayay Soomaaliya ku socotay halkaas ku soo Xasan Sheikh Maxamuud waana ugu mahadcelinayna waan wax weyn waxa kaloo kaaga filan doorka waxda ay dawladda ay ku jirto urur dhaqaaleedkan bariga iyo bartamaha Afrika oo xuduudda amaanta ka noqon taas waxaa keenay weliba asla markaasna dawladaha suuqaas ku midaysan markii saddex loo dhigo afar dhig markii saddex loo dhigo laba dhig ka mid ah waa soo xumeen markii loo fiiriyo xukuumadda hadda dhacday iyo meesha wax masiinaysa marka waxaa runtii oo historic ah oo role model uu Xasan Sheikh Maxamuud oo u noqday runtii sidii xaaladda meesha ay taageereen iyo meesha ka soo qabtay isku barbaariyo isku lafiyo marka aqoonti kale aan u soo laabto oo dhinaca nabadgelyada iyo nimanka maadinta iyo mustashfiqiinta waa hadalka xogaa waxaa anoo ku jira adiga markaan dib u laabto aan ka raacay mustashfiqiinta iyo maadinta iswan sida keliya ee looga hortagi kara waxay tahay in dhinaca fikirka lagala dagaalo macna ma sameynayso wiilasha yararka ee qoryaha la goolay ee markii la qabtana ku calaacalaya waa ishan waa runtood waa la khalday waa wax jira laakiin fikirka lagu khalday ayaa u baahan in fikirkaas lala dagaamo lana dilo waxaa kaloo jira oo taas ka sii xun meelaha qaarkood maamul goboleedyada qaarkood sida maamulka galmudug oo kale waxa uu ku mashquulsan yahay sidii dadka iyo bulshada looga mashquulin lahaa la dagaalanka fikirkan argagixisnimada mustashfiqiinta iyo maadinta iswan ee horgoodaya ayadaas marka waxaa hadda aan tusaale usoo qaadan karaa waxaa hadda aan kula hadlayo laba sac kahor soo gaaray in nabadoon ka mid ah nabadoonadii soo dhisan maamulka degmada gaalkacyo nabadoon maxamed salaam cilmi uu u xiran yahay uu u afduuban ma xiran xataa uu u afduuban yahay isla maamulka maadaama mawduuca barnaamijka aan anagoo ilaalinayno maadaama aan ka hadlayno xagga iyo diblomaasiyadda iyo markaasi sida markaasi ka aqoon-yahan ahaan dawladda hadda uu hogaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu bixiyey markaasi dadaalo badan oo sidii markaasi wadamo fara badan oo markaasi sidii xiriirkooda dib loogu soo celin lahaa iyo doorka markaasi dawladda ay ka qaadanayso sidii guud ahaan qawaarijta al-shabaab looga xoreyn lahaa guud ahaan dalka marka maadaama jaaliyadda Soomaaliyeed ay tihiin
dadaalkiina ku aadan xagga diblomaasiyadda marka la eego oo tallaabo wanaagsan laga gaaray xagga marka la eego la dagaalanka argagixisada shabaab qurba joogtiina ma iska warqabtaan oo la xiriira sidii hadda cariga Mareykanka ku sugan tahay wadamada kale qurba joogta inaad wada xiriirtaan xiriir mid ka dhaxeeya oo kulamo ma yeelataan oo sidii markaas si kaalintiin aad uga qayb qaadan lahaydeen haddii ahaan lahayd garab istaag oo ciidamada aad la garab istaagaysaan iyo waliba sidii door weyn aad uga qayb qaadan lahaydeen sidii loo soo afjar lahaa khawaarijta al-shabaab alayzag waa hadda su'aal muhiim ah oo runtii aan ugu baraarujisay waana big point oo runtii oo naga maqan markaan aan qurba joogta xiriir noocaas oo leenahay iska dhaafay maraykanka gudihiisa waxaa loo kala fadhiyaa ilaa iyo sidii ururada hadda Soomaaliya oo berigi jiri jiro kale oo magaca carabka iska wato kale marka arintaas arin naga maqan waaye waana runtii waxaan uga mahadcelinayaa telefishinka qaranka inuu ugu baraarujiyo waa kaalin naga maqan loona baahan yahay in aan sidaas sameyno haddaanan qurba joogta Soomaaliyeed ay adduunka ku kalno haddii aan taas aan sameyno waxaan istaagi karnaa doorka ee nimankan ee hadda hay'adaha caalamka ee uga jiraan Israa'iil maanta waxaa meeshaas ku haya waa dadkeeda waay oo ilaa iyo qaaradaha adduunka oo dhan meel kasta ay ka joogo Israa'iil ka joogo uu asagaas contribution ku leeyahay hadday tala noqoto iyo hadday wax bixis noqoto marka anaga waxaan looga baahan yahay in aan dadka aadan noolnahay sida ay u dhaqmayaan dhaqankooda dhinaca wanaagsan dhinaca uga dayana ma sida macalqasad dhalinteeda ay ku kacdo kale inaan wax wanaag aan ka qaadano aqoonta aan ka qaadano sida ay u fakerayaan aan u fakerno sidaas marka qodobkaas waa big point oo naga maqan waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iideysan doono aniga waxaan ku balan qaadayaa saacadda laga bilaabo runtii ugu jirin oo annaga miyaa meelka ka dhaafa xataa miyaa ilaa iyo 7 iyo 8 oo waxaa noo dhisan oo jaahiliyada lagu sheegay waxaad arkaysaa laba nin oo dhahay nin walba uu ku leeyahay aniga jaahiliyada garuuda ama jaahiliyada Jubbaland oo midooda uu leeyahay anaa guddoomiye Soomaalidu waxa weeye markii adduunkana loo fiiriyo ama wadamada aan ku noolnahay dee Soomaalida hal jaahiliyad buu yihiin waxa yidhaahdo waxaan maamul goboleedo iyo marka qodobka aad baad umahadsan tahay ugaas maxamed ugaas abshir oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka waayahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay oo kaashanaya markaasi dadka deegaanka iyo khawaarijta al-shabaab waxay ka saareen deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan iyo markaasi Shabeellaha Dhexe afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya General Cabdullaahi Cali Caanood oo markaas shir direed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay jabka xoogan ee la gaarsiiyay khawaarijta al-shabaab howlgaladii bariyahan ka socday dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoodiiba u socdaan dagaalkii lagu qaaday masaajid Cali Guduud looga xareeyay cadawga ciidamadii halkaas joogay waxay sii wadeen howlgalkoodii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo colalka hubaysan ama xoogga hubaysan ee kacdoonka shacabka Soomaaliyeed waxayna ka saarayeen tuulooyinka iyo beeralayda iyo dhulka kaymalayda ee cadawga uu ku jiro way si degan uga saarayeen laana cadaga taktikadiisa waxay ka mid tahay in ay dhulkaas galaan kaymaha iyo baadiyaha koox iyo unug ay u galaan oo ciidanku markuu dhaafo ay gadaal dhibaato ka geystaan ama ka soo weeraraan ciidanka saas darteed waxa laga maraa noqotay si saf ballaaran ah oo jaha kasta dhanka bari dhanka waqooyi dhanka galbeedba si degan in looga socdo waxaana hadda la jaray ilaa iyo 85 kilomitir oo ah 100 kilomitir oo u dhaxeeyay aadan yabaal iyo masaajid Cali Guduud ergadaas waxaa laga saaray tuulooyin ay kamid tahay Daarusalaam iyo Harka Dheere oo cadawga looga dilay ilaa iyo 6 inta la arkay ciidankeenana xoogaga kacdoonka shacabkana laba kamid oo ay dhaawac ku soo gaartay waxa kale dhanka Hiiraan dagaal adag ilaa xalay saaka uu ka socday meesha la yiraahdo Mabaax waa xuduudda Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe dhacda waana magaalo muhiim u ah tuulo muhiim u ah cadawga ciidanka cadawga markii halkaas lagu galay waxay ciidan noo soo xaqiijiyeen saraakiisha howlgalka samaysay 10 cadow kamid oo inay dhimatay
afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Generaal Cabdullaahi Cali Caanood ayuu ahaa oo markaasi faahfaahin ka bixinayay jab xoogan oo markaasi maleeshiyaadka qawaarijta al-shabaab lagu gaarsiiyay inta u dhaxaysa tuulooyinka ama deegaanada gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Raadraac oo caawa aad kala socoteen telefishinka qaranka. tan barnaamijka lamida kulmi doona waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.